Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada dabcan. Halka waxaan rabnaa inaan ku eegno maanta muuqaal aad iyo aad xiiso u leh. Waxaan rabnaa isla eegno qaabka loo codsado impact. Waxaad isweydiinaysaa impact maxaa waaye? Impact waa affiliate marketplace oo yacni kulmisay shirkado kala weyn oo brands oo markaas aad ka mid noqon karto affiliate oo markaas aad ka samayn karto daro. Marka waxaan rabnaa inaan isla eegno qaabka loo apply gareeyo, qaabka loo codsado ayaan rabnaa halkan inaan ku soo koobno. Marka waxaan rabaa marka inaan isla eegno marka hore inta apply gareyn. Requirement-ka laga rabo inaad marto inta apply gareyn waxay ka mid yihiin kow waa inaad haysato marka website wax loo yaqaano mise social media sida Facebook oo kale. Haddii aad haysan website waxaad ku apply gareyn kartaa social media sida Facebook oo kale mise Instagram. Marka qodobka labaad waxaa waaye high quality content marka maxaa waaye waa inaad kusoo gudbiso website-kiisa markaas article oo high quality ah oo markaas soo jiidan karto oo markaas macaamiisha kala duwan ee website soo booqda. Mid saddexaad waa traffic high quality waa inaad lahaato. Midna waa aad muhiim u tahay maxaa yeelay markaad codsanayso impact brands kala duwan marka mostly waxay refer gareeyaan high quality traffic ay refer gareeyaan. Marka website-kaaga haduu leeyahay booqasho fiican oo high quality ah traffic oo natural ah oo loo soo booqday search engine-ka haduu leeyahay marka waxaa laga yaabaa 99% inaad hesho aqbalaadda impact. Maxaa yeelay mostly waxay target ka saaraan traffic. Website aan traffic lahayn cid wax ku falayso ma laha. Maxaa yeelay traffic wuxuu ka mid yahay qodobka ugu weyn ee markaas website-kiisa lagu xaqiijin karo inuu markaas uu yahay website markaas ka qayb noqon karo impact. Qodobka saddex afraad maxaa waa inaad kusoo gudbiso articles gaaraya 15 ilaa 20 udhexeyso oo high quality ah. Waxaa kale oo iska ilaalinaysaa inay yihiin AI. Marar badan AI waxaa laga rabaa inay kusoo jeedaan way dhici kartaa. Balse waxaa ka dhigtaa articles-kaada inay yihiin maqaam oo human markaas. Tan shanaad maxaa waa inuu website-kaada leeyahay SEO waa inuu diyaarsan yahay search engine optimization SEO. Sidoo kale inuu yahay mobile friendly yacni markii mobile camal qofka ka soo booqdo inuu yahay design garaysan yahay mobile friendly. Markaas SEO-na waa muhiim maxaa waaye website-kaada haduu SEO uu fiican yahay waxay kuu sahlaysaa mid inaad hesho traffic fara badan oo aad ka hesho Google search. Lixaadna maxaa waa inuu leeyahay about us page-kan waa page aad muhiim ah oo caddeynaya website-kaada waxa markaa ku saabsan yahay mise waxa ka hadlayso mise niche-ka marka aad kusoo gudbinayso. About us marka page-kan waa very important oo sait muhiim u ah. Lixdan haddaad iska hagaajiso waxaan rajeynayaa inay kusoo aqbali doonto impact. Marka haddii aan guda galno application-ka waxaad tagaysaa browser-kaada haduu yahay Chrome iyo wixii la mid ah qoraysaa marka impact. Impact traders marka search garaynaysaa kadib link-kan aad ku dhufanaysaa. Wuxuu ku keenay marka page-kii halkii aad ka apply gareyn lahayd. Halkaas sign in uu ku leeyahay bal sign in haddii aad account hore u leedahay. Halkan ayaa imaanaysaa marka saddexdan option ay ku siinayaan. Option koowaad maxaa waa partner oo hadda midkaan doonayno inaan qaadano. Partner waa marka inaad ka mid noqoto inaad ka noqoto affiliate oo markaas affiliate aad ka noqoto brands-ka markaas uu soo gudbiyo impact. Kan labaad maxaa waa brand marka kan maxaa waa company markaas rabo inuu ku subeysto soo isticmaalayo impact affiliate. Iyo kan la mid ah agency asagana u dhigmo sidoo kale brand. Kana waxaan qaadanaynaa marka partner ayaan nahay affiliate inaan ka noqono. Marka halkan wuxuu keenayaa intaan qayb ku siin karaa waa sign up isku samayn kartaa. Marka waxaan xuleynaynaa sign up with email and email ugu fiican inaad isticmaasho. Halkan wuxuu ku leeyahay magacaasa koowaad labaad iyo username inaad qaadato email address phone number una soo buuxinayaa. Marka halkan wuxuu nooga codsanayaa inaan gelino code email-ka noogu soo diray iyo email-ka aadna marka code-ka soo qaadano.
verify aan leenahay. Halkan kale qaybtan kale una keenay markay qaybta marka oo ku saabsan yahay markay businesskaada mise website-kaada sheygaas halkan marka waxaan codsanaynaa qaybtan labaad oo content overview dib waxaan leenahay continue. Halkan wuxuu ku leeyahay marka qaabkee rabtaa marka inaad promote garayso promotion waxaa ku promote garan kartaa marka website aad social media app tan waxaan codsanaynaa website aan codsanaynaa. Halkan marka wuxuu ku leeyahay website magaca geli linkiisa geli ku leeyahay waxaan soo qaadanayaa link website aan soo qaadanayaa. Marka copy aan leeyahay marka halkan ayaan ku paste garaynaa. Kaliya waxaa iska masaxaysaa intan oo http-dan oo halkan kugu sii kadib waxaan qaadanayaa magacan intaan ku paste garaynaa. Saa ujeedo magaca aan gelinay linkan waan gelinay kadib waxaan leenahay submit. Marka wuxuu noo add garayn doonaa website-ka aan ku isticmaalayo aan ku apply garaynay input kadib waxaan leenahay continue. Halkan wuxuu ku leeyahay marka maxaa tell us about yourself uu leeyahay marka individual ma tahay mise company ku leeyahay marka aniga individual aan nahay. Marka wuxuu ku leeyahay account display marka magaca ka soo muuqanaya markay arki doonaan brands-ka markaas kala duwan oo ka soo muuqan doona website-kaaga kor magaca ka soo muuqanaya. Marka magacaada sameyso ku leeyahay marka magaca iska daysanayna. Magacaas aan buuxinay marka wuxuu ku leeyahay waddanka ku apply garanayso. Halkan wuxuu ku leeyahay address-ka sheeg ku leeyahay street address iyo city iyo zip code ayuu sheegahay kuwana soo buuxinayna isku soo laabanayno. Marka address-kan ka gudubnay marka qaybtan oo keenay time zone marka time zone-kiisa ku daynaysaa. Halkan wuxuu ku leeyahay marka currency ma beddelayso US aan qaadanaysaa. Haddii marka currency aan qaato oo local yani hadhow charges u kor saari doonaa markii lacag kala soo baxaya. Marka maxaa ugu fiican US ka qaado. Marka waxaan leenahay continue submit wuxuu ku leeyahay USD ayaa ku qanacsan tahay marka okay aan leeyahay. Marka halkan wuxuu ku leeyahay logo-ga website-kaaga gasho logo-da website-kaaga gasho ku leeyahay. Halkan wuxuu ku leeyahay description oo website-kaaga soo beddelaa ku saabsan. Marka halkan waxaan soo xalan doonaa logo website-kayga soo qaadanaya. Kadib upload aan leeyahay marka halkan wuxuu ku leeyahay marka geli wax oo markaas adiga u hadlayso website-kaaga. Marka halkan waan ku diyaarsan soo qaadanaya. Halkan ayaan copy soo dhahay marka paste aan ku leeyahay. Kadib halkan sidan business model marka hore soo xulatay ma beddelaysid yani hadhow iska laafay content overview ku darsanaysaa. Kadib intan kale halkan wuxuu ku leeyahay media kit soo upload garay intaan iska dhaafaynaa option ma laha. Waxaan leenahay save aan leenahay. Halkan ha sixin course maxaa wuxuu ku leeyahay I would like to prevent this profile from being shown to our new brands. Marka wuxuu ku leeyahay inay arkin brands-ka haddaad saxdo yani maxaa muujisay inaad leedahay brands in arkaan maray profile-kayga. Marka halkan ha sixin marka save ayaa leedahay. Kanaan ka boodno marka oo ah marka inaan marka si interest markaas oo aan gudbino. Waxaan leeyahay marka website design. Affiliate waan ka tali.
sidoo kale waxaan leeyahay content creator. Saddexdaas aan ku daadsanaynaa. Kadib waxaan leeyahay save aan leeyahay. Logoodii weli inoo soo celinayaa. Inaan logo ku soo celino rabaa. Maadaama changes aan sameynay logo aan qaadanayaa. Intaa waxaa kadib ayaan save aan leeyahay. Marka halkan wuxuu ku leeyahay verify your social media accounts. Marka maxaa la rabaa markan waa inaad ku verify garayso website-kaaga. Marka verification website la rabaa marka step-kan waa step muhiim ah. Most people marka ugu dhawaaqo. Marka waxaan leeyahay halkan drop down ka ku dhufanaysaa. Waxaa qoranaysaa marka wixii horena soo xulato marka hadda website soo xulato website social media soo xulato social media isticmaalaysa. Marka website soo xulno website aan qaadanaya. Kadib markan laba qayb ku siinaa waa ku verify garayso. Qaybtan wuxuu ku leeyahay add Google Analytics. Qaybta side waa la tahay. Saana waxaa xulinayaa manually website-kan caadi soo garanayna. Halkan wuxuu ku leeyahay website magaceeda link soo geli ku leeyahay description. Wixii hadda ay la soo qaadanayna. Copy aan leeyahay. Kalaan ku soo laabanaya. Paste aan leeyahay marka. Intan la iska masaxaya. Magacaan qaadanaya. Qaybta magaca dhiga. Kadib halkan qoraanka daan soo qaadanayna. Kadib halkan wuxuu ku leeyahay marka screenshot ka soo qaad WordPress website-kaada dashboard-kiisa ka soo qaad screenshot ku leeyahay. Marka WordPress ka daan tagno. WordPress qaybtan u yaala. Screenshot aan ka qaaday. Waxaan ku soo laabanaya halkan upload aan leeyahay. Dib u open aan leeyahay. Intan dhan buuxinay save aan leeyahay. Almost 80% marayna. Qolka 80 marayna. Marka halkan meeshan dad badan oo cilad kala kulmaan marka marba ku soo celin doono taskaas ma ben community si aan isku la xalino kulay maxaa waay email address markaas domain oo markaas aad ka iibsatay yaa la rabaa marka inay profile u sameeyo kan kale maxaa marka inaa qayb ka mid ah website-kaaga oo articleskiisa marka idin garayso marka code-ka aad dhigto tan maxaa marka inaa code aad geyso waay marka qaybta website-kaaga oo headkiisa marka ana waxaan doonaa mid noo sahlan qaybtan aan qaadanayna kadib wuxuu ku leeyahay marka website-kaaga headkiisa maxaa dhigtaa koorkan ay ku leeyahay koorkan aan qaadanayna kadib waxaan imaanaynaa website dashboard-ka imaanaynaa kadib waxaan imaanaynaa halkan appearance kadib waxaan leenahay theme file editor aan keenaa kadib halkan uu ku een doonaa marka halkan marka waxaa ka cunan doontaa hoos u soconaysaa waxaa ka cunan doontaa marka header php maxaa laga yaabaa theme-ka inay kala duwan qayb oo kugu tilmaamaaday theme uu ku tilmaamo qayb kalena uu ku dhaho header marka aniga header php aan tagayaa
halkan labada head baa kan ku sheey headka furan iyo headka xiran halkan dhaxdooda la rabo inaad kor ka dhigto marka waxaa leedahay waxaa soo jiidaysaa halkan aa imaanaysaa mise halkan hadda aniga kor kale ii yaallaa bas adiga inta ku taal laga yaabaa waxaa leedahay kan korkiisa ayaa dhigaysaa inter ayaa leedahay space aad siinaysaa marka halkan aad ku dhistiraysay korka soo qaaday markaas yahay waxaan leenahay marka update waxaa kaa codsanaya marka inaad kor inaad dhigto hoos ha keeni marka haddii uu marka horaan wax kugu jiray waa inaad korkooda dhigto kadib update aan leenahay marka file updated it is successful waxaan kusoo laabanaynaa impact ayaan kusoo laabanaynaa marka waxaan leenahay marka halkan aan saxaynaa following the above instruction aan leenahay marka submit verification leen task is not completed successfully marka cilada ugu weyn aad kala kulmayso waa ciladaas waxaa rabaa qaabka ugu fudud ee cilada aad ku xalinayso ayaa rabaa inaan ku tusiyo markuu saa ku bao waxba marka mar dambe intaa qaado haddana ha ku celcelinin inaa marka haddana halka aad geyso korka halkan ha ku celcelinin korka keliya marka waxaa la rabaa inaad imaato website-kaaga marka waxaa imaanaysaa halkan booskan aad tegaysaa halkan saas u saaraysa kaasada marka waxaa imaanaysaa meeshan ku qoranta bunch all halkaas ku dhufanaysaa kadib haddana waa ku celinaysaa bunch all laba mar aad leedahay marka wuxuu kaa saacidayaa inuu marka update-ka u qaato wordpress website waxaa laga yaabaa korkaasaytu aa soo gelisay in weli update-ka wordpress u qaadan saa darteed marka impact marka waxay ku leedahay weli korkan waa update maaha marka halkaas saasay kaa caawinaysa kadib maxaa leedahay halkaa kusoo noqonaysa website-kaa marka cabaar 1 minute camal aa urkaaganaysaa kadib waxaa leedahay verify ayaa leedahay kadib hadda wuxuu ku doonaa qaybtii qaybta hore aan xulinaynaa kadib caadi noogu diyaarsan yahay sidii ayaa follow aan leenahay bas masaxayna submit verification aan leenahay kasuma taskaas dhan complete successful marka intaa bas ku rabaa marka waxba ku celcelinin korkaasaytu keliya waxaa sameyni website-ka wordpress dashboardkiisa imaanaysa kadib boos kale tagaysa bunch all ay leedahay marka kaa saacidaya inuu wordpress uu qaato update-ka markaas aa ku samaysay oo korkaas aa ku bedeleysa halkaas waa isla fahmay ayaan filaya marka waxaa kusoo noqonaysa website-ka marka hadda wuxuu ku leeyahay not verify keliya waxaa leedahay intaa imaanaysa refresh ayaa leenahay ismaarti marka wuxuu ku leeyahay verified waxaan leenahay continue next aan leenahay waa ablaan garanay marka wuxuu leeyahay marka waa inaad sugtaa marka wuxuu ku leeyahay marka hang tight ku leeyahay marka emailka haddii aan tagno oo aan fiirno marka wuxuu ku leeyahay application received uu leeyahay ismaarti diiday 72 saacadood oo 3 bir u dhintay ee sugaas laakiin ka yar uu kusoo jawaabi doonaa haddii aa heshay haddii aa helin marka intaasaan muuqaalka kusoo koobaynaa muuqaalku soo gaaro fadlan like saar haddii aan ugu soo biro waxaan jecel soo birto asalaamu calaykum